Turkiga ayaa shaaca ka qaaday bamka ugu dhaqsaha badan ee hawada laga soo tuuri karo. Dhawaan sharikadda difaaca Turkiga ee Aselsan ayaa soo bandhigtay bam dhexgeli kara dhufaysyada adag, iyadoo lagu daray waxyaabo cusub oo kordhinaya awooddeeda burburineed. Bambadan ayaa loo sameeyay qaab yar oo u saamixi karo in hawada laga soo tuuro. Sidoo kale qaabkan cusub waxa uu awood u siinayaa bambadan inuu burburin karo bartilmaameedyada adag iyo kuwa jilicsanbo. Bambadani ayaa masaafo dhan ilaa 100 kiiloomitir gaari karto, iyadoo u dheer tahay agabkeeda oo aad u jaban marka loo eego bambooyinka la midka. Muuqaalkii ugu horreeyay ee bamkan ayaa waxaa lagu soo bandhigay bandhigga warshadaha difaaca caalamiga ee Istanbul EDF, kaasoo la qabtay 17 ilaa 20 Agost ee la soo dhaafay. Bambooyinkan yaryar ayaa loo sameeyay si awood loo siiyo diyaaraduhu ayna u qaadi karaan tirada ugu badan ee bambooyinka. Bamkani waxa uu burburin karaa bakhaarada, dhufaysyada, goobaha madaafiicda iyo nidaamyada difaaca hawada.